بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo dunida ka joogtaan, khaasatan shacabka geeska Afrika. bacda salaan barnaamijkeenii galabta iyo geeska Afrika maanta oo taariikhdu tahay 12 bishii shanaad 2025. laba qodob baan rabaa inaan maanta kaga hadlo barnaamijka. qodobka koowaad waxa weeye khaatumo oo u gaftay madaxdii garxajis dhaqanka, iyaga oo garaad jaamac garaad cali si aflagaada ah oo weliba bahdil ah uu ula hadlay suldaankii guud garxajis suldaan daawud oo xitaa uu magaciisa ugu yeedhi waayo ayuub yidhi. I think inuu ku qalday kabtan ayuub ku qalday, because ayuub bay wax badan wada hadlaan. intaas waa iga kaftan. waxaan rabaa inaan ka hadlo garaad jaamac garaad cali, garaadkii gala dagaalka loo bixiyey. anigu horta personal shaksi ahaan garaadku classmatekeygii buu ahaa, isagoo laascaanood ka yimi iskuulka kaasama balaare. garaad cabdiqani allah u naxariistay, garaadkii isaga aabihii adeerkii ahaa ee la noolaa ama dee saldanada hayay garaadnimada oo isaga soo gaadhsiiyey waan daris ahayn. sidaasaa markii laga keenay laascaanood waxaa la keenay guriga garaad cabdiqani garaad cali oo ahaa ninkii aabihii ka dhaxlay saldanada ama garaadnimada si uu isaga ugu wareejiyo. calaa ayi xaal garaadku waa gafay, si qaldan buuna ula hadlay suldaanka, inkastoo suldaanku uuna ficiltamin oo si gobonnimo leh u hadlay oo uu ka leexday siduu isagu rabay. waxay ahayd in meesha lagu yooyootamo qaabka uu approach gareeyey. waxay tusaysaa inuusan ninkani garaad jaamac ahayn nin caqli badan oo nabadda iyo dadnimada iyo quality-ga ilaashada. sababta waxa weeye hadduu colaaddu hadday kula tagto oo aad ilaa heer gaadho inaad golo walba waxaa doonto ka tidhaahdo, dhowr gooro horena wuu aflagaadoodo cidna uma jawaabin. buur madow baa mar yaro galay oo si xun u hadlay. laakiin anigu shaksi ahaantayda qaabka uu ula hadlay suldaanka, golaha suldaanka lagu caleema saarayay suldaanka ogaadeen, gaf bay ahayd. uu ku gafay suldaanka suldaan daawud. laakiin suldaan daawud lama ficiltamine si degan buu ugu jawaabay. calaa ayi xaal waxay muujinaysaa aggressiveness-ka iyo qaabka uu jaamac u dhaqmayo, heerka ay gaadhsiisan tahay buu hadalkaasi muujinaya. dalka waa dal Soomaaliyeed, ummaddaasi dhiig iyo dhaqan iyo walaaltinimo oo ka dhexeeya. haddii niman askara ay dembi galeen, ma aha in aad reer sheekh saxaaq oo dhan ka dhigto inay yihiin dad duulaanku ah dhul dadkii ay iyagu dhaleenba. waalid bay dadkani yihiin, arab baa dhalay dhulmaanta oo dhan. marka in dadkii waalidka idiin ahaa maalin walba meelaha golaha sidii inaad ma fiicna. qaabka u hadlay ma fiicnayn totally, qaab aan qurux badnayn oo bahdila. meesha uu u haysto inuu ka xigana, meeshan dhulkan soomaalida Etoobiya lagama xiga. ninkan waa dhulkiisii, waa meeshuu waalidkii iyo dadkiisu kasoo jeedaan. waa qalad in sidaa loola hadlo dhulkiisii isagoo jooga. qodobka halkaasaan kaga baxaya. garaadkana waxaa lagu leeyahay raaligelin laba nooc ah. mid inuu beesha dhan ka raaligeliyo qaabka uu suldaanka ula hadlay, midna inuu suldaanka laftiisa u gafay oo magacaanu ahayn uu ugu yeedhay. labadaabaa lagu leeyahay. qodobka labaad waxa weeye sidaa ka wada warqabteen xasan sheekh maxamuud international pressure baa saaran. waxayna u eg tahay in la gaadhay xilligii xilka laga qaadi lahaa.
xasan sheekh maxamuud waa diiday waddankaas inuu meel hagaagsan geeyo wixii loo dhiibay 3 sano ka hor hal qof la hadlaa ma jiro dad doorasho ku jiro oo 3 sano ka hor uu ra'iisul wasaare Roble hogaaminayo oo madaxweyne farmaajo authority bixiyay ayaa lagu wareejiyay maanta Roble ma wada hadlaan waana nasiib daro waxay u muuqataa marka in Kampala la isla tagayo wiigan kadibna ama waa xilka dhiib ama waa aqbal shuruudahan iyo in shir halka lagu qabto oo shirkaas laga xayuubinayo awoodda waana danta Soomaaliyeed 12 bilood baa haray waxbana uma diyaarsana xasan gabagabadii waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii galabta maanta galabtii siyaasadda geeska Afrika shacabka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan danahooda ha raacdeen qabaa'iladan sida qaldan u dhaqmay ee raggii dhaqankeena nabadgelyada ka shaqeyn lahaa ay colaadaha iyo afxumada horinayaan hal laga digtoonaado hal iska ilaaliyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.